السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من في عين هاي أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. حسبي الله ونعم الوكيل. waxaan idin rajeynayaa qof walba meeshaad joogtid inaad caafimaad qab iyo nabad qab ku joogtid ku nooshahay. caawana waa jimce, waxa weeye 15 Shabcaan. rabadaan wax yar baa inooga harsan. ilaahay nabad qab ha inagu gaadhsiiyo. intii dhimatayna allah u naxariisto, inta noolna ilaahay maxaan dhahdaa caafimaad qab iyo nabad qaba allah inagu barakeeyo. sometimes waxaan israadaa duceeyo dadkan duco dhinac kale ducadeeda ma garanaye waa iska duceeya wixii madaxa ay kusoo dhaco ma ku duceeya. ilaahay ha naga aqbalo wixii wanaagsan, wax wanaagsan baynu wada rabnaa gidigeena. allah ha naga aqbalo. bishan waxaa la yidhi caawo kale waa jimca 15 bay ku beegan tahay Shabcaan. waxaa la yidhi ilaahay subxaana watacaala samada ku soo maxaanada yimaadaa dabeetana maxaa dhahdayey wuxuu idhaahdaa ummad maxaa adoomahaygiyo yaa dee waxay weydiisanaya qof walba macaawa ducadu waxa weeye waa furan tahay. ducada dee markastaba ma garanayno marka samada la furo, laakiin caawa u badantayna samada la furan tahay. caawa waxa weeye habeenkii la kala saarayay baa la yidhi, waa saan ku maqlay anigu. waa habeenkii la kala saarayay inta dhimanaysa aan rabadaanta gaadhaynin, inta cimriga loo dheeraynayo, inta caafimaadka laga qaaday xanuunka xanuun loogu bedelayo, inta caafimaadka xanuunka laga qaaday caafimaadka loogu bedelayo, inta taajir laga dhigayo fiqiirnimada laga saarayo, inta fiqiirnimada taajirnimada laga qaaday fiqiirnimada laga dhigayo. dee waxaan kuri waa kala wareeg. marka ilaahay haynaga dhigo kuwii caafimaadka loogu bedeli lahaa, kuwii wanaag iyo nabad qab loogu bedeli lahaa. maxaa dhahdayey xanuunada iyo waxaas ilaahay haynaga qabto, intuu hayana allaha caafiyo. dee wax wanaagsan baynu baryanaaye ilaahay ka baryana ka sugaynaa. qof walba duceyso oo hal isu soo duceeyo, caafiyo musaamax iyo in la iscafiyo. laba group baan ilaahay u caafi maxaan dhahdaa ilaahay maxaan dhahdaye maxaan saamaxayni baa la yidhi caawo kale. waxaa la waa qof cuqudad iyo xaasidnimo, cuqdadii xaasidnimo qulubta dadka ku hayo, qof kale ugu hayo, iyo dadkan ilaahay rumaysnay. labadaa group lama saamaxayo baa la yidhi, laakiin inta kale ilaahay waa saamaxaya, waa u dambi dhaafaya. ilaahay labadaa group inagama dhigo, ilaahayna inagama dhigin. alxamdulilah. caafiye musaamax baa ayaa maxaan aniga layga wada yahay qof kasta. shaydaanku dadka uu isku diraa. caafiye musaamax everyone. anyone caawa waxaan ka hadlayaa ama anyway yes caawa waxaan ka hadlayaa maxaa dhahdayey 3 qaybood waan idin tusaya. qaybta koowaad horta, labada qaybood hore waa caafimaadka iyo mental issuegaas iyo hooyooyinka iyo caruurta ay labada qaybood ka hadlaysaa. qaybta kalena waxa weeye ku cimri qaadasho, waayo adduunka nool lahay wax kasta waan arkayna soo maha. so waxaan farayaa waalidada, hooyooyinka especially hooyadunbaa ilmaheeda hoosta ku haysata markasta soo maaha. hooyadu waa inay ilgaara ilmaheeda ku haysato. ilmahaaga haddii afku nabara kaa soo baxaan, ama carabka ahaato, ama ciridka ahaato, ama dibnaha sare ha ahaato, haddii nabarba uu kaa soo baxo, ilmaha yareed beebiga dhashay ha dhunkanin. maxaa dhahdayey qof afkiisu maxaa dhahdaa nabar ku leeyahayna ha u ogolaa ilmahaaga inuu dhunkado. waayo qofkan ilmahan yar waxaweye wixiisu waa maxaan dhahdaa waa baby curdana aan wax badan iska celin karaynin.
maaragtay waxyaaba badan borigu la dagaalamo caruurta inta badan malaha waa baby waa cusub yihiin moogtahay wixii adduunka way ku cusub yihiin marka any bacteria way ataagarayn karaa marka maxaa dhahday markaan leeyahay caruurahina waa dhumin kartaa laakiin marka afkoydun bukoo kale maaragta ciridka nabar ka soo baxo carabka nabar ka soo baxo finaniyooda waxba qofka kasoo baxi kara moogtahay debnaha dushooda waad aragteen dad debnaha meelaha aynu odhan jirnay caaraa kaga kaada la odhan jiray wadankiima gala joogay caaraa qofka afka kaga kaada la odhan jiray ma garanaysaa nabarada noocaasaya horta dee waxay kusoo baxayaan wax caloosha ku jira calooshaada infection ku jirta ama bacteria ku jirta wax xun ku jiraba waxaan soo saaraya marka ilmaha yar oo baby ha dhunkani ka ilaaliya qof afkiisa maxaan dhahdaa nabar ku leeyahay ama aabba ha noqdo ama hooyo ha noqoto ha dhunkanin ilmaha yar qof dadka kalena ka ilaaliya dib maxaan dhahdaa dhunkanaya waayo maxaan dhahdaa wax baan halkan idinka tusayo cimro qaadasho oo wax ku qaadataan oo maxaan dhahdaa calashaan ku maxaa la yidhaahdaa yeah sometimes waxay igu dhacaa block brain waxbaa igu dhaca marka laakiin waan itusayaa gabadh baa soo dubtay oona maxaa dhahdaa kasoo xigtay iyadana qofka englishka si fiican ugu fahmayna waa okay qofkii kalena maxaan dhahdaa dee anaa usii maxaan dhahdaa explain garayn karaa so suk or kiss a baby on the lips. This is a result of somebody kissing her on the mouth. When parents say not to kiss their children, this is one of the reasons. This is a recent photo of 8-year-old Breelyn. She was born healthy, but as a baby, she was kissed on the lips by... inanta yar caafimaad qab bay ku dhalatay maxaan dhahdaayey afkeeda saa aragtaan soo ma aragtaan afkeeda xabad iligii wixii waa ka daateen someone who had a cold sore and her life changed forever. So after this happened, qof nabar afka kule baa dhunkaday inanta yar maxaa madoobay bahashii bisinka okay because leer badan ma haysto. She began having seizures and became extremely sick, and since as a baby your immune system is not developed, inanta yar markay balaak baa meesha noqotay inantan yar markii qof afka nabar kule uu dhunkaday ayay waxaa suuxtima ku dhacay dhibaato dhan baa inanta yar u dhamaatay dhageysta HSV infection attacked her brain and left her with a severe brain injury. Her mother explains that the left xanuunkii suuxtima ku dhacay wuxuu damage u geystay maskaxdeedii ilmaha yar side of her brain is 60% damaged and the right side is 10. boqolkiiba 60 maskaxdeeda waa u dhamaatay waa dhimatay hadda waa dhunkashada keliya boqolkiiba 60 maskaxdeedii waa damage bay noqotay damaged. And because of this, Breelyn has never been able to walk or talk, and doctors don't even know how long she'll live. ma socon karayso mana hadli karayso dhakhtarkana wuxuu yidhi lama garan karo inta sii noolaan karayso was actually another child in the past who had the same thing happen to them and they only lived ilmo kale saasoo kale ku dhacday waqti hore iminkana maxaan dhahday sugan eegintida till the age of 7. And here's the thing, many people ilaa 7 jir baa ilmahaasi sii noolaada argue that they've kissed their baby and nothing like this has ever happened, but this is still very possible, especially if you have a contagious virus in your system. I mean, just to be safe, we should haddii wax virus jirkaaga ku jira ilmaha damage buu geysanaya iminka ilmaha yari caafimaad buu ku dhashay qof nabar debintaa kule unbaa dhunkaday suuxtima ku bilaabmay 60 boqolkiiba 60% baa maskaxdiisii dhimatay ma socon karto ma hadli karto intay sii noolaan doontana allahu yaclam dhakhtarku laakiinse wuu ka dayriyey marka foojignaada soomaaliya all avoid doing this. ma fahanteen intaa marka caruurta aada ha loo ilaaliyo ilaah baa wax ilaaliye caruurta aada ha loo ilaaliyo waa cajiib wallaahi waan ka naxay ilmaha yar horta dee wax qorona ilaah baa u qoray ilmaha yar dee waxaas inay soo gaadhaan laakiin waa wax laga naxo weeyaan ilmahaagii caafimaadka qabay
all of a sudden intuu qof dhunkaday qofka dhunkadeen lama garanayo waa familiga kulli ilmihii yaraa completely lifekiisa upside down noqday can you believe it qof la yidhi dhunkasho keliya maskaxdii ku dhimatay 60% maskaxdiisii waayo qofkaasi wuxuu watay virus oo xun bahayay oo jirkiisa ku jiray ilmahana day ilkii wada arkaysa ilkii baa ka daatay suxtii ma ku kacday 60% baa madaxiisa maxana maskaxiisa dhimatay ma socon karto ma hadli karto ya allah haday dhimatana waa siqirta ilaahay caafimaadsi waayahay ta kale imka qayb kale aanu beerayaa waxaan ka hadlayaa hooyooyinka umulaha ah horta marka hooyadu hooyada markay ilmaha dhasho markay ilmaha curad ay dhasho waa la soo tiriyay ilmaha curad markay dhasho hurdaday seexan jirtay intaanay caruur aanay dhalin waxa daaqada ka boodaya 100 saacadood ayaa daaqada ka baxaya aanay seexanin oo hurdadeed ka xumaanaysa because of ilmaha uurka markay yeelatay calooshii xanuunaysa maxaa dhaxdaayay calooshii dhinac kana u seexan kar xagana dusad ilmihii dhibayo calooshii maxaa dhaday ilmihii aan ogolaayn kolba dhinac u jiisatid umusha markaad umushidna waaba ka sii daraysaaba ka daro dib dhal weeyaan waa aragteen qof maxaa gabadh ka soo hooyo soo noqotay hurdadaada waxaan ku waxa sixataba garan maysid marka waxa laga hadlayaa gabadh baan imkadi tusayaa waayo dadku bilaadanku isku mid maaha hooyooyinka qaar baan waxaan jirkooda u adkeysan karaynin waa markay dilaan caruurta marka hooyooyinka qaar baa heer dee iyagu isma oga moogtaa maskaxdii baa waxaan aanay qaadi kari weydi marka inaga imse hooyo saayo maxaan dhahdaayay u dhibaataysan hooyo habeenkii 10 jeer kacaysa 10 time kacaysa haddana subaxii hawl kale sii gelaysa waa waxay dumarka Soomaalidu markay waa aniga soo laabtay computer waxalkan ay yara waashay marka waxaan ka hadlaynay hooyooyinka dhibaatada haysata casha hurdada iyo waxaas sida ilmaha maxaan dhahdaa uga waalato iyo wixii oo dhan marka waxaan tusayaa gabadhan marka sug codkeedan furayaa sug and where should I stop this one? Okay. Okay, ina Abdullahi wasku yaacday waa hagaag bal iska daawad iska dhageysta wata doonayna si fiican u arkaysaan iyo in kale afar jeer bay kacday iminka waa ilmihii warwareegaya sug codkan idinka xidhayaa intaas codka lagu qabsadaan soo aragtaan way soo kacday 8 jeer bay kacday 9 jeer waxaan aqd maarta ninkii baa u yimi ninkeedii baa u yimi oo ilmaha ka qaaday iyadu nin u naxariisto ay haysataa ma ogtahay nin u naxariisto markiiba dee ilmihii u yimi oo ka qaaday oo ka caawiye baa jira marka maxaa dhahdayay dhibaatadu waa taa marka hurdadu waxay ku yaraanaysaa haddii saa hurdadu kugu yaraato oo maxaa dhahdayay mentalkaagu kuma fiicnaanayo maxaa dhahdaa bal xaajiga kala hadalo waxaad tiraahdaa warba intaasaan yara seexanayaa bal caruurta ilmaha yar iga yarahay hadduu dee mid wax maqleeyo yahay intaasaan kaga hadhaya taa midda kale waxaan kusoo daraya ta saddexaad waxa weeye horta waxaan dhahdaa alxamdulilah rabbilcaalamiin
ilaahay muslimnimo igu maxaa iga dhaliyay oo maxaa muslimnimada aan ku soo koray aan ku barbaaray intaa ku leekaaday oo diinteedu muslim tahay oo waalidkayga awow ay muslim yihiin baan ilaahay 10 jeer ugu mahadnaqa alxamdulilah rabbilcaalamiin inta halowsan allaha soo hadeeyo waayo waxaan taa u leeyahay ummadaha kale sidii u dhaqmayaan iyo diinta islaamku si u fiican tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin bal idinku bal qowmiyadan idinku eega idinku ma aragteen qof dhan salo aasi waxaa siliiska arkaysan godka siliiska qabuuro waa qof weyn lagu aasirabo qof weyn qofkaas loo aan la gelin rabaa badi ama tiirka dhulka laga suri rabaa waxa alxamdulilah diinteena iyo dhaqankeena sharafta leh in ay xataa markaan dhimano qiimo iyo qadarin siiyeen oo meedkeena si qurxoon loo asturo ee jirkeena loo aasayo oo saano kale istaag aan lagu aasaynin bal ka waran haddii aad ka dhalan lahayd kuwaas istaag si tubada isku aasayo oo markaa dhibatid haddii waxaa dhar lagu soo gelsho adoo xataa lagu karfanin oo wejiga ay banaaya madaxa ay banaan yahay qaab istaag ul camal waa qayb cadaab ka mid a meeshii dadka khiyaamaha ay ku suganayaan jiif adi istaag ay ku suganayeen ilaahay nama geli oo ilaahay nagama dhalin ilaaha dhaqan wanaagsan iyo diin wanaagsan oo suuban oo sharaf leh la siiyey markaa dadka dhaqamada oo aad fiirsatid waa u fiirsatid waxaa waale in dhaqanka iyo diinta aa haysano oo yahay tan ugu fiican dunida alxamdulilah ilaahay taas ku mahad warbal weligaa ya allah ma aragtaan subxaan allah ma aragtaan inankaasuma ka dhexelay youtube ku jira ka hadlaya marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay islaamka inaga dhigay alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaalida qof dhan hadda waxay ahaayeen baadariyadii baa soo fadhiyay meesha meerkaysan waxay ahaayeen kristan bay ahaayeen I didn't know kristanku inay waxaa sameeyaan ma garan karo macaadadooday ku darsadeen ma fahmi karo laakiin qof dhan oo dhintay ayaa godkii aad arkaysin lagu dhexriday dadna ilaahay qiyaamaynta ka dhacay saasoo taagnaanaya meelo kale way jiraan adduunyada saas meydadkooda iyagoo sidii u joogaan sidii u fadhiis meelay saa u fadhiiseen buuro laga soo lalaadiyay dadkii qaar oo meydadkoodii ka laalaadaan qaar fadhiya markaa dadka caawaanta weeyaan ilaahay iyagana ha kasoo hanuuniyo ha kasoo hadeeyo inagana ilaahayna ma fidneeyo dee waxaan leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan dee khayr baynu isku ognahay insha allah maxaan dhahdaayay dee waanu maxaan kolba dee inta yaraan heloon baan ila soo xidhiirsiinayaa dee maxaan like xooga saara iyo subscribe-ka kun i gaarsiiya inta ka sareysa inta kari kartaan dee waa mahadsantihiin in dadkii intii kusoo biiray maxaana kusoo biiray vlog maxaana hoodo vlog kusoo biiray family hoodo welcome waa mahadsantihiin khayr baan idin rajeynaya maca salaama peace